tan iyo markii la doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa baraha bulshada ay ku xiriirto sida Facebook iyo Twitter-ka aad looga hadlayay muuqaalka wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo isaga oo aad u qiiraysan ku qaylinayay Farmaajo iigeeya. Cabdullaahi Maxamuud Cismaan Daanyerow oo ka soo jeeda magaalada Jowhar ayaa haddaba xalay loo geeyay madaxweyne Farmaajo. Wariyaha VOA-da Sahre Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ku wareysatay waxaana ugu horreyn weydiisay sida uu dareenkiisu yahay kadib markii uu la kulmay madaxweyne Farmaajo. waxaad bal iga warantaa doorashada ma la socotay ka hor intaada dibadbaxa bilaabin? si fiican waa la socday teeda kaleenta 2011 ayaan baneenka aniga inshaar makas. maxaa uu inshaartay? inaa la dooranayo makas sunan uu tukanayo ma. haye in la doortaa marka ilaahay u baryeysayba. kulli macnaha bareentiin ilaahay macnaha u dhaligo haddana waa la doortay waana ku faraxsanahay 100% teeda kaleenta haddana waan la kulmay kulli wixii war waa isdhaan magas. markaad la kulantay maxaad ku tiri? wallahi waa maadsantaan tahay 100% sida adiga lagu doortay macnaha waxaan dareemayaa macnaha hawada xataa inay si fiican u tagtay waana ku faraxsanaan tahay 100%. haddana macnaha taageerahaadan isalkiin haddana taageerahaada ayaan nahay haddana waxaan jeclaan lahayn inaa adiga oo dadkaada iyo dadka iyo diintaada oo daafacdid walaalahana oo adiga oo garab oo siisay. waa gartay markii aad banaan baxaysay markii aad lahayd Farmaajo ii geeya waa lagu geenaa maxaa ka rabtaa markii lagu weydiiyay waxaad sheegatay in iskuulada iyo dugsiyada iyo wadooyinka inuu dhiso aad kala hadli lahayd marka ma kala hadashay shalay markaa la kulantay? maya maanta mala hadlin laakiin caadi waa wada kulannay wixii wada hadal kulli waa ugu dambeynay haddana waxaan ku sheegaa kulli aniga sidan isku soo laabatona sidan maleynayo hadda kulli waa is aragnay waan isalaanay kulli alxamdulillah waana ku faraxsanahay maadaama waan is aragnay. waa gartay Cabdullaahi Daanyerow bal waxaad iga warantaa markii aad dibadbaxa sameynaysay hadalladii aad ku dhawaaqaysay dadka oo dhan way ka gadantay waa la wada maqlay maxay kula tahay in hadalladaada ay macno u sameeyeen? wallahi hora loo yiri bilku jecel boqol maxaa ka taramo. haye wallahi cawadaas waxaan sameynaa xataa ma sheegi karo farxadda iga badato ma kasaaday. marka haddana farxaddaadii oo badatay aawadeed hadalladaada isaga hadlaysay ilaahay amarkiis waa kuu qarxeen wakaasaa bil banaanka kuu taaganay noqotay. si fiican ma noogu celin kartaa intii yareed oo aad dhehaysay? waa ku celi karaa maasha Allah maxaan u celi waxaan dhahayay Farmaajo haleegeeyo Farmaajo maleegeeyo Farmaajo haleegeeyo xamar luka haleegu geeyo Farmaajan u baana Farmaajo ma iigeysino markii lagu geeyay maxaa dareentay oo codsigaaga laga jawaabay? macnaha waa isalaanay laakiin aniga usii kama wada hadlin macnaha codsi wax la dhahay makasta. haye kulli inaan dib isku soo noqonayna ayaan rajaynaa weli ana. waa gar madaxweyne noocee jeclaan lahayd inuu Farmaajo noqdo? wallahi waxaan jeclaan lahay madaxweyne bulshada Soomaaliyeed inaas wax u qabto oo laamiyadana wax oo iska qabto isbitaalo iyo iskuulal oo furo oo xanaanada oo caruurta oo agoomanka xataa oo isku waxeeyo adiga kulli waa la socotaa Soomaaliya dhibka oo leedahay marka waxaan jeclaan lahay Soomaaliya dhibka oo leedahay inaas wax isbedel aad iyo aad u weyn inaas ka qabto taasaan rajaynaya. adiga reer Jowhar aad tahay Jowhar maxaa ka qabataa? wallahi Jowhar waxaan ka qabtaa beeraley aan ahay dhul qodotaan ahay dhulkay soo qotaa makasta xabadii galey oo ku rito xabadaas galey aan iska waraabsanaan iska falanaan wax ka sugamo iyo ilaah. wabiga jiinkiisa degan tahay? si fiican qaas ahaan xaafada kulmis. waayahay marka haddii dawladdan ay dawlad macno yeelato ee noqoto oo Soomaaliya amni iyo kala dambeyn iyo horumar ay gaarto maxaad ku haminaysaa inaad noqoto? maxaa maanka ka guuxayo ileen waad dibad baxday maxaa kugu dhaliyay inaad soo baxdo? walaale hadda aniga waxaan sii rajaynaa dhulkayga ayaan sii balaari lahay Soomaa oo tacabkayga ayaan sii macnaha aan waasac kasii dhiga lahay teeda kaleenta weli xataa waxaan sii rajaynaa inaan adiga oon sidii aniga cagaf iyo waxaas oo macnaha oon ku waxay ma kastaada.
meeqa darabo beeraa leedahay hadda adiga ku abuuran hal eetar ee dhanta waa 10 iyo 2 jibaal sax waa gartay 12 jibaal waaye haye marka maxaa abuurataa wallahi galey iyo digir ayaan abuurtay marmarka qaarkeed ayaan ka dhex gashaa Allah carruur waxay joogtana ay joogto teeda kale inta ilma agooman oo aabay iga dhintay kuriskooda ayaan hayaa oo ciyaalka ana u weyn Soomaa Cabdullaahi Maxamuud Cusmaan Daanyarow oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA